Jocelyn waa gabadh 16 jir ah ku nool dalka Mareykanka waana mid kamid ah gabdhaha ugu qaniisan dunida waxa cajiib qisada ay ku taajirtay Mr. Allen ayaa kufsaday iyadoo 16 jir ah kadib maxkamadda ugu sareysa dalka Mareykanka ayaa ku xukuntay ganax lacageed oo gaarayay $500,000 waana halka ay ka bilaabatay nolosheeda dhanimada ah waxayna isku samaysay qalliin jirka ah iyadoo oo u ekaatay gashaanti qalliinkaasina waxa ku baxday $2 bilyan Mareykanka Cayetana waa gabadh Spanish ah hantideeda waxa lagu qiyaasaa $4.9 bilyan da'deeduna waa 88 jir waxay dhimatay 20 November 2014 gabi ahaanba hantideedii waxa dhaxlay labadii ay nolosha ugu jeclay Santana Ortega waa gabadh Spanish ah hantideeda waxa lagu qiyaasaa $6.4 bilyan da'deeduna waa 48 jir waana mulkiilaha company-ga fashion-ka sameeya ee Zara yaraanteedii xataa ma haysan fursad waxbarasho waxayna ku jirtaa hantiilayaasha gudaha yar adduunka Katrina Renner waa gabadh Mareykan ah hantideeda waxa lagu qiyaasaa $7.1 bilyan da'deeduna waa 17 jir waxay leedahay muusimyada ugu badan ee dalka Mareykanka iyo guryaha ugu quruxda badan ee New York bilowgii nolosheeduna wuxuu ahaa mid ku dhisan faqri Margarita Lewis waa hantiile leh $8.7 bilyan Mareykanka waxayna u dhalatay dalka Switzerland da'deeduna waa 54 jir waxay leedahay company qaabilsan isgaarsiinta guryo dhisidda xisaabaadka beeraha iyo wax soo saarka cuntooyinka waxayna leedahay maraakiibta ugu badan ee adduunka Massimiliano Landi waa hantiile haysata $9.6 bilyan Mareykanka da'deeduna waa 73 jir waxayna u dhalatay dalka Talyaaniga iyadoo oo ka taajirtay curinta iyo samaynta daawooyinka waxayna soo saartay in ka badan 80 daawo oo kala duwan oo loo qaato xanuunada wadnaha Bailey waa gabadh Mareykan ah oo hantideeda lagu qiyaaso $10.7 bilyan da'deeduna waa 66 jir waana mulkiilaha company-ga weyn ee Cox iyadoo ugu magac dartay aabeed Cox Cheese